بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله bishan barakaysan run ahaantii waa mawsimul xasanaat qolo walba mawsim bay leedahay ganacsatadu mawsim bay leedahay xilliga ay dadka ganacsatadu ay lacagaystaan waa xilliyada maaragtaan ciidaha siyaasiyiintuna waxay leeyihiin mawsim iyakuna siyaasadooda waxay meelaha la qeylqeyliyaan marka doorashadu ay soo dhawaato qolo walba badeecada ay haysato xilli ay dadka u bandhigta ayaa jira tujaartu badeecadooda xilligan ay soo saaraan siyaasiyiintuna badeecadooda waxay keenaan xilliga siyaasadu ay dhowdahay doorashadu ay soo dhawaato ayuu nin walba fikradiisa hadday qaldan tahay hadday saxsan tahayba dadka uu markaa ayuu u bandhigay uu ka iibiyaa waa kuwa meelaha ka qeylqeyliyad aragteen dadka xoolo dhaqataduna iyakuna mawsim bay leeyihiin markay maqlaan ciidii baa soo dhawaatay khaasatan ciidda carafo ama xoolihii wadannada carabta loo dhoofinayay baa la furay markay maqlaan iyakuna badeecadooda markaasay bannaanka soo dhigaan bisha rabadaanna waxa weeyaan waa mawsim iyadana la yidhahdo dadka ilaahay doonaya inay u dhowaadaan dadka doonaya aakhirada inay camirtaan dadka doonaya ilaahay inay raalli geliyaan mawsimkoogu iyakuna waa bisha rabadaan weeyaan laanna waa bil aad u barakaysan weeyaan oo ilaahay baa casa wajalla qur-aankiisa ku sheegay inay bishani ay bilaha ka duwan tahay waxay kaga duwan tahay bilaha soonka waxaa laga dhaxlaa alla ka cabsi taqwad bishani bilaha waxay kaga duwan tahay qur-aanka kariimku bisha rabadaan dhexdeeduna soo degay bishani bilaha waxay kaga duwan tahay habeen leylatulqadriya bay xambaarsan tahay ku wada bishani bilaha waxay kaga duwan tahay waa bil habeen walba ilaahay casa wajalla uu leeyahay addoommo uu naarta ka xoreeyo bishani bilaha waxay kaga duwan tahay ducada muuminka ayaa la aqbalaa buu nebigu yihi xilliga uu afturku dhow yahay saa'imku waxa uu leeyahay duco la aqbalay xilliga ducaysta oo baahidiina ilaahay u sheegta bishani bilaha waxay kaga duwan tahay waa kii nebigeenu lahaa calayhi salaatu wasalaam cumratu fii ramadaana tacdilu xajatan maciya bisha rabadaan dhexdeeda ninka cimraysta cimrada bisha rabadaan dhexdeeda la cimraysan waxay u dhigantaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xaj aniga layla xajiyo oo kale u dhigantaa buu rasuulku yidhi bishani bilaha waxay kaga duwan tahay oo nebigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam rabadaan haddii uu yimaado albaabada naarahana waa la xidhaa albaabada jannadana waa la furaa maradatu shayaatiinna waa la xidhaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam rabadaan haddii uu yimaado albaabada naaraha waa la xidhi oo waxaa laga fahmayaa xadiiska waa maxay 11 bilood oo kale oo dhan naarta albaabadeedu way furan yihiin oo way iska ballaqan yihiin halka jannadana uu nebigu yihi rabadaan haddii uu yimaado ayaa albaabada jannada la furaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam bimacnaa waa maxay kii janno doonayow albaabadii jannada waa lagu furay jannada soo gal oo haddii bishaas aad ka faa'iidaysatid waxaad ehel u noqonaysaa inaad noqoto dadka jannada galaya jannada loo furay allah inaga dhigo وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلهي بقراك إنه شيء في آخر سورة الزمر dadka mutaqiinta adduunka dusheeda ilaahay ka baqayay jannada xaggeega ayaa degdeg si degdeg loogu kaxayn doonaa baa ilaahay yidhi iyaka oo maaragtana koox u socda siday u kala fadli badnaayeen iskugu acmaal ahaayeen ayaa la iskugu xidhxidhayaa deedna jannada xaggeega ayay malaa'igtu u kaxaynaysaa markay jannada iriddeeda hor yimaadiin ayaa ilaahay yidhi wafutixat abwaabuha
wawgaasi wuxuu macnaynayaa uu sheegayaa albaabada jannadu ma furnee markay irida jannada ay soo joogsadaan baa albaabada loo furayaa wa qaala lahum khazanatuha malaa'igtii jannada ilaalinaysana waxay odhan doonaan salaamun calaykum tibtum fadkhuluuha khaalidiin nabadgelya dushiina ahaatee albaabadii jannadana waa ka hadda laynii furee waad wanaagsanaateen waad mutaysateen jannade gala oo jannadii waa taasa ku waarya baa la odhan doonaa waa tahay jannadii allah inaga dhigo marka ramadaan haddii uu yimaado buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam albaabada jannada ayaa la furayaa bimacnaa 11 bilood oo kalena jannadu albaabadeedu way xidhan yihiin limaada waa daar loogu talagalay in dadka muttaqiinta lagu abaalmariyo inna lilmuttaqiina mafaaza xadaa'iqa wa acnaaba wa kawaaciba atraaba wa ka'san dihaaqa inna lilmuttaqiina fii jannaatin wa cuyuun ilaahay qur-aanka uu kaga warramay markaa dadka adduunka dusheeda ilaahay kaga baqeen muttaqiintii alla ka cabsiga leh inay jannada ay mutaysteen baa ilaahay qur-aanka uu ku sheegay marka haddii uu ramadaan yimaadana waxa uu nebigu leeyahay albaabadii naarahana waa la xidhayaa oo 11 bilood oo kale naartu albaabadeeda way furnaydo bimacnaa dadka naarta ku hoobanaya badan weeyaan walciyaadu billah dadka dhimanaya ahlu naarka ayaa ka tiro badan ahlu jannaha dadka jannada galayana way kooban yihiin abadna ilaahayna hay naga dhigo kuwa jannada mutaystay ee naxariista ilaahay ku mutaystay marka bishan maadaama albaabadii jannada lagu furay de waxa ku hadhay in lagu yiraahdo soo gal saad ku soo galaysaa marka jannadii waxaad ku soo galaysaa acmaashii jannada aad ku mutaysan lahayd baa bishan in la qabto ayaa habboon marka acmaal aljanna wa bil mid dhawaaqa xagga ilaahay ka dhawaaqiyo odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil markii khayrka jeclaayo khayr doonow bishii khayrka waatan ku soo qaabishay adiguna soo qaabil buu ku leeyahay aka jeesan aqbil bimacnaa waa maxay iyadiina way timid adiguna ku soo noqo oo ka horkaalay isku yimaada wayaa baaqiya sharri aqsir buu leeyahay kii dembiga iyo macaasida iyo fujuurka iyo dembiga iyo sharka badnaayow bishani maaha bishii ilaahay la caasinaye ka gaabsa buu leeyahay isaguna ka gaabso kada ajarkuna waa mudaacaf macaasiduna waa mudaacaf ajarku ajaradii hore uu ka wen yahay sharka iyo dembi iyo xumaanta aad samaysay bisha ramadaan dhexdeedana dunuubtii hore iyaduna way ka dembi weyntahay ugu malagaasaa markaa odhanaya warkii khayrka doonayo waatan bishii khayrku iyo soo qaabil soonka soo qaabil qur'aan akhriska soo qaabil salaada taraawiixda soo qaabil zakada iyo sadaqada la bixideeda soo qaabil qaraabada xidhiidhinteeda soo qaabil sukuudka badso sukuud carabkaaga ilaali iska wasakhayn soonkaaga bishani waa bishii khayrka dadka ahlullaahiga ee muuminiinta bishani waa bishii khayrka ka faa'iidaysanayeene khayrka soo qaabil buu leeyahay waa waqti qiimo badan weeyaan bisha ramadaan waqtiguna waa tharwada qofka bini aadanka xoolahaaga iyo waqtiga ayaa xoolaha ka qiimo badan baa leeyahay dhaqaalahaaga ood ku ciyaartaa waxa ka dhib badan waqtigaaga ood ku ciyaartaa ka dhib badan lacagta haddaad maanta daadaadisid oo si malaayacni ay kugu dhaafto berritoola waxa laga yaabaa lacag intaa in ka badan inuu ilaahay meel kale kaa soo geliyaba laakiin daqiiqada maanta kaa tagtay kugu soo noqoni mayso maanta hadday ku dhaafto berri maanta ma soo noqon doonto ogow sabt jimco weeyaan maanta jimcaha hadduu kaa tago jimcaha soo socdo jimcihii tagay maaha waa jimco kaloo fresh oo cusub weeyaan waagii barye buu yidhi xasan albasri raximahullah waagii baryeba cadceeddu 3 eray bay tidhaahdaa ana yawmun jadiid anu maalin jadiida ayaan ahay oo cusub wa calaa camalika shahiid camalkaad qabanaysana marag baan ka ahay oo markhaati baan ka ahay ilaa qiyaamahana anagu kugu soo noqoni maayo waxaad qabsataad helaysaaye iga faa'iidaysa bay tidhahdaa maalintu ina alleyla waannahaar yacmalaani fiika facmal fiihima maalinta iyo habeenku adig kaa go'an yihiin adiguna ka faa'iidayso oo waqtigaaga ha dayicin oo bisha ramadaan ilaahayna soo gaadhsiiyey inakoo nabad hayna oo caafimaad hayna oo amni iyo arsaaqadna hayna oo dad muslimiina weliba ilaahay inaga dhigay inaan ilaahay ugu mahadino weeyaan laa nudayic salaf waxay bisha ramadaan way sugi jireen bisha ramadaan markay ilaahay uu la kulansiiyena waxay tamanin jireen sanadka oo dhan in ramadaan looga dhigi lahaa bay tamanin jireen laana waa bishii dembi dhaafka waa bishii toobadkeenka waa bishii xasanaadka iyo ajarka la labalaabayay waa bishii naarka xoraynta waa bishii ducada la aqbalayay
ducada waa la aqbalaa waa bil caafimaad wada caafimaad bay wadataa caafimaad xanuuna dhakhtaradu ay daweyn kari waayaan ayaa bisha Ramadaan qofka soomay Ilaahay jirkiisa kaga saaraa dhakhtarada adduunka u qiimo badan xanuuna ay dawadooda ay waayeen ayaa laga helay Ramadaanka inay ku dhex jirto markaas gaaladii cadaydii ku madoobeedba ay leeyihiin waxa la isku raacay 3 maalmood haddii bil walba laga soomo xanuunada maanta adduunka dadka naafeeyay Ilaahay dadka waa ka qaadi bay ku leeyihiin kansarka kamida wal ciyaadu billah xanuunkan kansarka sarataanka leeyda daawadiisa waxa la sheegay inuu yahay soon hadii la soomo caloosha la gaajaysiyo xanuunkaas tilqaayan iska dhiman oo u baxaya yuriidu Allahu bikum al-yusra ilaahay marka uu ku leeyahay waxaan soonka inagu farad yeelay maaha culays inaan nisaarayna hamoodine fudayd baan la doonaynaa bimaana waxa weeyaan amalkaad qabanaysaan ajarkiisa waa niin laba laabayna caafimaad baad ka helaysaan ilaahay baad ugu dhawaanaysaan naar baa laynaga xoreynaya toobada laynaga aqbalaya naftaad ku tarbiyadeynaysaan taqwad baa iniga ziyaadaysa waa madrasatu taqwa bisha Ramadaan waa taqwada laga bartaa taqwada bisha Ramadaan hanuunka ayaa laga bartaa isbedel baa laga hadaa isbedel waa bil khayrkeega xambaarsan tahay laakiin Allah ina garasi aamin dhahada Allah ina darasi waxa ayaan daraa ninka bisha Ramadaan u soo gashay ka faa'iideysan waayo man hurima khayraha faqad hurim nabigu bisha khayrka ay xambaarsan tahay iyo habeenkeeda leelatul qadarku khayrka uu xambaarsan yahay qofka laga xarimay waa mahruum buu nabigu khayr dhamaantii qofka waa laga xarimay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas yaan bishan uga faa'iideysanaa markaas waa bisha Ramadaan waxaan kaga faa'iideysanaynaa waa hadii aan hadigii nabigeena aan raacno alayhi salatu wasalaam tattabi' rasuulkeeni baan raacayna alayhi salatu wasalaam saxaabadiisii baan raacayna dadkii wanaagsanaa siiradoodii baan raacayna oo leenahay maxay bisha Ramadaan qaban jireen amalka ugu badan ee nabigeenu Ramadaanka uu qaban jiray waa maxay sadaqadana uu bixin jiray baa la yiri quraankan uu akhrin jiray inta badan dabayl la diray oo ummad loo diray inay soo halaagto sida u degdegto ayuu nabigu bisha Ramadaan khayrka uga degdeg badnaa waxa uu nabiga waliba inta badan lagu amaanay bisha Ramadaan uu qaban jiray waa maxay waa quraanka lianna bishan waa bisha quraanka uu soo degay weeyaan waliba habeen leelatul qadriya ayaa ilaahay quraanka inoo soo dajiyay min lawhil mahfuud bay malaa'iktu ay ka soo naqliyeen ila baytul izz oo samada adduunka dusheeda ku yaala ayaa malaa'iktu ay keeneen baladiye ku xambaarsan malaa'ikta habeenka quraanka soo naqlisayna ilaahay waa ka ku sheegay kalla innahu tadhkira faman shaa dhakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharatin biaydi safarah kiramin bararah wa quraankaas macaanidaas xambaarsan ee tadkirada ee waanada ee mawcidada ee wixii adduunyadan iyo aakhira ku anfacaya ku sheegaya ayaa ilaahay leeyahay malaa'iktii soo xambaartay ee quraanka soo naqlisay baa la yiri waa malaa'ik mutiiciin oo ilaahay adeecsan baariyiin weeyaan almaahiru bil quraan qofka quraanka xariifka ku ah ee quraanka xafidsan ee quraanka akhriyana maalinka qiyaamaha malaa'iktaas la soo baxaya nabigu waa kii xadiis ku lahaa sallallahu alayhi wasallam quraanka ay soo naqliyeen ay malaa'iktaas sharaf ku yeesheen falidalika waa quraan waa habeenkii quraanku waa bishii quraanka kariimka la soo dajiyay weeyaan bishan waa bishii quraan marka ayaan qiila wa qaala waqtigeena ayaan kullu min a'immatul hadith sida imaam Shaafici oo kale Allah una xariistay waxa la sheegay faqihu hadhihi al-umma bisha Ramadaan 62 jeer ma la sheegay mise 63 jeer buu quraanka khatim jiray baa la yiri 62 jeer bimaana maalintiina marbu quraanka khatimayo waliba dhowr juz oo dheeraadana uu raacinay habeenkiina hal mar buu khatimaayay maalintuna intan uu bayahayd ma ziyaadsanayn habeenkuna intan uu buu haayo ziyaada ma ahayn laakiin innaka waqtigeena barakadii ba ka baxday maanta ayaga waqtigooga barako lahaa waqtigay ku xisaabtamayeen Amr ibn Abdul Qais rahimahullah ayuu ninku yiri sheekh ii joogso markaasuu cadcaada ii joojahan ku joogsaday bariga saacad la eegana dadku ma haysanay laakiin waxa la eegaya waqtiga la eegan jiray cadcaada habeenkina xidigaha la eegan jiray cadcaada ii jooji kolka cadcaada ii qabato ayaa ku joogsan bimaana waqtiga igu socdee hadaad waqtiga ii joojisid waa ku joogsan weeyaan hadii kale ma joogsan karo inakana maanta waxay naga maraysaa inaan idhaanahe waqtiga baas halkeen ku soo dilaa balaga maray waqtigu waa tharwadi ilaahay ku siiyay nicmataani maqbuunun fiihima kathiirun min annaas as-sihhatu wal faraaq bu nabigu alayhi salaam
laba nicmadood oo waaweyn buu nabigu yidhi oo dadka intooda badan maaragtaan ay ka dagan yihiin oo macnaha qaflad ay kaga sugan yihiin waa labadee waa firaaqa intaad gacan bannaan tahay waa intaad nooshahay baa loo jeedaa intaad nooshahay firaaq baad haysataayo ogow intaad faqiirka aad tahayna firaaq baad haysataa intaad dhallinyarada aad tahayna firaaq baad haysataa haddaad adigoo faqiira haddaad qur-aanka akhrin kari weydo ma maalintaad maalqabeen noqotaad qur-aanka akhrin kari ila dadka adduunyada haysta way mashquulaane adoo dhallinyaro ah haddii aad maaragtaanay aad qur-aanka u fadhiisan weydood khatimi weydo maalin walba ama toddobaadkii ama 5 cisho ama 10 cisho aad ku khatimi weydo ma marka islaan iyo ubad iyo mas-uuliyad ay ku fuusho miyaad qur-aanka akhrin kari doontaa adigoo firaaq haysto maanta nool oo adduunyada jooga haddaad ka faa'iidaysan weydo bisha ramadaan iyo cibaadada iyo taacadda ilaahay aad kordhin weydo ma marka qabriga lagu geeyaad cibaadaysan doontaa may daarul camal waa halkan qabrigu daarul camal maaha qabrigu waa daarul jazaa daarta abaalmarinta weyn qabrigu halkana daarul camal la yidhahdaa marka labadaa nicmadooda ilaahayna siiyey yaanan dayicin laba shay bay inaku maanta waan la dagaalanaa waqtiga si baan la dagaalanaa marna waan caynaa marna waa soo dilaa dadkeennu waqtiga marna way dilaan marna way aflagaadeeyaan waqtiga markaad dilaysid waxaad ogaataa waqtiga markaad leedahay han soo dilo waxaad ka dhigan tahay waa raysul maalkaagii baad dilaysaa imaam ibn qayyim al-jawzi allahu naxariistee baa yidhi waqtiga oo la dayaca waxa uu ka adag yahay dhimashadu ka daran yahay inaad dhimato iyo inaad waqtigaaga dayacdid waxaa daran inaad waqtigaaga dayacdid lima wuxuu yidhi waqtiga oo dayacdid waqtigaaga haddaad dayacdee waxay ka dhigan tahay ilaahay ku abuuray baad ka go'day aakhiradaadiina waa dayacda bay ka leedahay iyo ka dhigan tahay laakiin haddaad dhimatid adduunyadii unbaad ka go'day ilaahay kamaad go'in mawdku adduunyadu kaa gooyaa laakiin waqtigaaga dayaciddiisu ilaahay aakhiradaadii buu kaa goynayaa ogow marna innaku waqtiga maanta waan dilaynaa oo annaka maanta waqtiga halkeen isku soo dhaafinaa waqtiga halkeen ku soo dillaa marna waxaan idhahnaa waqtigan aabbihii cuna sida ay galay aniga waa meesha ilaahay uu lahaa xadiis alqudsi yu'diinii ibnu aadama walam yakun lahu daalika yasubu addahr wa ana addahru alamru biyadii uqallibu leyla wannahaar baa ilaahay ina aadan baa idhibaaya oo sidee ina aadan ii dhibaya zamankay aflagaadeynayaan baa ilaahay yidhi zamanka markay aflagaadeeyaanna amarku anigu gacantayda ku jiraaye zaman maaha waxa waxba badilaye aniga ayaa xaalaadka bini aadamka la soo darsaaya anigaa keenaya oo badilaya baa ilaahay yidhi zamanka aflagaadeyn zamanku waa ilaahay zamanku waayo allah dadka inta badan haddaad waraysato waqtigaasay wada haystaan ilaahay waqtigaasadaa ii galay waqtigaa halkaa ii dhigay waqtigaa iga jeestay ree hebel waqtiga allah haya maanta waa waqtigoogii waqtigaa ii kaa qabtay war ma yidhahdaan yasubu dahr zamankay aflagaadayn ilaahay baa zamankuu caayaya zaman meesha ma jiree amarku xaggaygu ka imanaya baa ilaahay yidhi oo wixii xaalaad inala soo darsaaya axwaal inagu imanaysa anaa keenaya zamanku ma keena baa ilaahay yidhi anaa keenaya abaar hadday timaadda ilaahay baa qadaray barwaaqa hadday dhacdana ilaahay baa qadaray meel hadday gubato ilaahay baa qadaray dad hadday caydhoobaan ilaahay baa u qadaray dad hadday maalqabeeno noqdaan ilaahay baa maalqabeennada ka dhigay xaalaad adiga isku nisbee wixii dhibaato kugula soo darista aduu isku nisbee laakiin waxaad ogaataa shar iyo khayr waxa uu ka imanaya waa xagga ilaahay marka marna dadku zamankay aflagaadaynayaan marna waxay leeyihiin zamanka halkeen ku soo dilaa zamanka haddaad aflagaadayso waxay ka dhigan tahay allihii ku abuuray baad afka ku taagaysaa markaad leedahay zamanka halkeen isku soo dhaafiyaa oo waqtiga halkeen ku soo qaadanaa markaad leedahayna waxay ka dhigan tahay tharwadii ilaahay ku siiyey ayaad cidla ku soo daadinaysaa cid kaa qabanaysana ma haysatid imaam xasan albasri allah u naxariistay baa odhan jiray addoonka ilaahay inuu u cadhooday waxaa lagu gartaa wakhtigiisa ka dayacma buu yidhi haddaad aragto addoon wakhtigiisu dayacan yahay mar walba dayac waa maxay waa markuu qofku ku jiro laa yacni waa maxay waa markuu qofku ku dhex jiro shaqo aakhiradiisana aan waxba ka taraynin adduunyadiisana aanan waxba ka taraynin shaqadaa laa yacni baa la yidhahdaa qof 24 saac laa yacni ku dhex jira haddaad aragto waxay ka dhigan tahay addoonka ilaahay baa u cadhoonaya ka dhigan tahay waa calaamaadka lagu garto inuu ilaahay addoonka u cadhaysan yahay haddaad aragta maxay addoon wakhtigiisu mar walba uu dayacan yahay meel dayacan buu fadhiyaa dad dayacmay buu la socdaa wax dayacan buu wakhtigiisa ku bixinayaa dad xun buu la saaxiibayaa meesha uu fadhiya ma garanayn waxay tahay uu dayacan yahay markaas addoonka ilaahay uu khayr u la rabo uu raalli uu ka yahayna waxaa lagu gartaa bay culimmadu yidhaahdeen meel wanaagsan baa ilaahay mar walba wakhtigiisa ku bixiya hebel masaajidku xilliga jooga hebel qur'aan buu akhrisanayaa hebel
hebel dacwadii diintu ka shaqaynaya, hebel mee hebel xaramkuu jiraa, hebel mee hebel aabbihii hooyadii buu adeegayaa, hebel mee hebel qaraabadiisiibuu maanta wuxuu geeyey u soo adeegaya u xidhiidhinaya, hebel mee hebel madrasaduu macallinka iyo ummaddu cilmiga u dhigaa, hebel mee hebel masaajidka xilliga laga helaayo maqaaxi lagama helo. haddaad aragto qof khayr mar walba ku mashquulsan waxay ka dhigan tahay qofka ilaahay baa khayr la doonaya. ilaahay khayrka ha inoo dhib yareeyo, allah inoo macaaneeyo khayrka, allah inoo macaaneeyo.